بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوية كسر دوالا برنامجك هذا الحين تتدواتك وبرنامج تدوال البنك كسر قادنا هذا وحيابها كتاجن بدها وطن كالصومالية إزبدلدي يقدم بيه كدعي دلك ومدحوينها الصومالية قدوميها برلمان كيس الوزراء الوضورتي. أنا رمى سؤال وحكي الدين دونا وزير الدولة رمها دبلة حكومة الصومالية خالد عمر علي oo faa'iido naga siin doono bal sidoo warko isbedelka wadanka dhacay iyo waxyaabaha xilligan la filan karo waraan ku soo dhawo wadan wasiir telefishinka Somali News xaruntiisa Muqdisho kadibna waxa loo bixin naga siisaa sidii wax kula muuqdaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kuma santihiin asi telefishin ahaan maadaama aad raadinaysaan xog badan oo ku saabsan marxaladda siyaasadda ee kala guurka waana kuma santihiin taas soo adrataan in shacbiga Soomaaliyeed u bandhigtaan waxyaabaha dhabta ah ee jira marka ama isbedelka siyaasadeed. Arinta labaad sad la socotid dalkan sidiisaba marxaladan kala guurka muddo ay laga soo shaqeynayay xukuumadii hore oo ra'iisul wasaare ka ahaa Umar Cabdirashiid iyo madaxweyne Xasan Sheekh. Initiative-ka dalkan inuu la yimaado isbedel oo doorasho maadaama doorashadii oo direct election ama tii oo codka qof iyo cod la awoodi waayay waxa la isku dayay in la sameeyo doorasho dadban oo ilaa iyo 6 goobood oo kamid ah dalka in doorasho ka dhacdo. nasiib wanaag 6 goobood qalaad ka soo hajiraan laakiin majority waa lagu soo guuleystay. isbedelkaasi markuu dalka yimid maadaama markii hore 135 ay soo xuleen maanta 14,025 oo aqalka hoose ah iyo maxaa la dhahaa wakiilada maxaa la dhahaa dowlad goboleedyada wakiiladii ama golahoodii shacabka ayaa waxay soo doorteen aqalka sare oo ah 54 xubnood. nasiib wanaag isbedelkaasi wuxuu keenay in 329 xildhibaan la soo doortay ay bilaabaan isbedelkii tan saddexaadna oo hadda fursada loo helay oo aadka muhiimka u ahayd waxay ahayd number 1 in baarlamaankii uu sameeyo dabeel siyaasadeed oo ka duwan wixii la filayay taasoo ku soo baxay madaxweynaha hadda xilka loo dhaariyay isla markaana waajibaadkiisa dastuuriga ah gudanayo uu magacaabay ra'iisul wasaare. Expectation-ka isbedelka waxa kamid ah imaashaha ra'iisul wasaaraha hadda yimid asigana mid xataa in badan oo kamid ah shacbiga Soomaaliyeed ama dadka candidateska ah ay daneynayeen ma ahayn ama ay filayeen ma ahayn daneynayeen aysan filayeen ma ahayn haddana ilaahay calafkiisa ayuu ka dhigay in Xasan Cali Khayre uu nasiib u yeesho inuu ra'iisul wasaarihi noqdo. intaas mid la mid ah haddana baarlamaanka shalay wuxuu cod aqlabiyad ah 231 ku ogolaaday ra'iisul wasaaraha kalsooni ku siiyay inuu xukuumaddiisa soo dhisto. waxaan rajeynaynaa kala wareejinta maanta dhacday oo ahayd in ra'iisul wasaarihii xil waqtigiisa dhamaaday mudane Umar Cabdirashiid maadaama shalay la dhaariyay ra'iisul wasaaraha hadda la magacaabay maanta ayuu asigana xilka la wareegay. xukuumaddii ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid wasaarihii hore Umar Cabdirashiid xukuumaddiisii way sii shaqeynaysaa ilaa laga helayo ama laga magacaabayo kalsoonina la siinayo golaha xukuumadda cusub. marka ma la oran karaa xilligan wadanka isbedel ayuu galay madaxda hadda la soo doortay wax badan ay ka qaban karaan dhibaatooyinka xilligan wadanka jira. kubaddu waa isku dhiib qol isku dhiibka sida ciyaaraha oo kale oo la isku dhiibo ayaana xilalka la isku wareejiyaa. qof walbana oo kamid ah laga bilaabo muddadii transitionalka oo kumeel gaarka oo muddada 12 sano ahayd ay ka bilaabanaysay 2000 ilaa 2012 kumeel gaarka laga baxay isku dhiib badan jiray ilaa iyo 3 madaxweyne ay isku soo dhiibtay xilka oo ahaa Cabdiqaasin u horeeyay 2014 waxa xilka la wareegay ilaa naxariista Cabdullaahi Yuusuf 2009 waxa xilka la wareegay madaxweynihii hore Sheekh Shariif 2012 August maxaa la dhahaa Septemberna waxa xilka la wareegay Xasan Sheekhna wuxuu wareejiyay hadda isku dhiibkaasi shaqooyin aad u badan ayaa la soo qabtay
oo lagu soo guuleystay maanta dowladnimada inay heerkan soo gaartana waxaa sababay isku dhiibkaasi oo si transitionalka ahaa ama xilligii transitionalka ahaa si smoothly ah oo runtii oo deganaansho siyaasadeed ah oo ku soo dhacay xilka qofka markii laga adkaado asoo buuq jirin dhibaato kale jirin iska qabsi jirin ayuu xilka wuxuu u walaajinaysay oo runtii oo dimuqraadi ah dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya waxay sheegayaan dawladii tan ku horeysay inaysan dalka waxba ka qaban oo dhibaato mooyaan ku soo korayso mala qabtaa fikirkaas aniga laba xukuumadood ayaa kamid ahaa oo ah xukuumadii Cabdiweli Sheekh Axmed iyo xukuumadii Umar Cabdirashiid dawladii Xasan Sheekh oo madaxweyne ka ahaa xukuumadii Saacid kama mid ahayn labada xukuumadood waxa la qaban karana waa tan hadda keentay in 14 ilaa 15 cod ka bixiyaan marka practicada waxaad gacanta ku haysid aniga intaan dhihin kanaan qabanay laakiin waa practical adiga hadda aad haysid oo ah xukuumadaas waxaa soo xulay maxaa la dhahaa golahaasi baarlamaanka waxaa soo doortay 135 maantana kow caasimadii dalkii ayuu ka dhacay xulashadii baarlamaanka xilligaa jiray maantana wuxuu ka dhacay goboladii dalka oo ah 6 xarun doorasho marka taasaa kugu filan marqaati kow taas 135 ay ahayd tanna waxay ahayd 14 ilaa 15 aqalka hoose ah in ka badan 2000 in ku dhow ilaa 1500 oo ay ahayd aqalka sare marka waa dareemi kartaa ku dhawaad 16,000 oo waxa ka soo qayb galeen wakiilo shacab inta badan dadka waxay ku sheegayaan marka la sheekeysatid xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay maamul goboleedyada iyo caasimadda Muqdisho in qaarkood musuqmaasuq ay ku yimaadeen arrintaas wax practical dhab ah waaye ma ahan xataa wax theory ah practical dhab ah waaye faragelin badan oo musuqmaasuqa inay jirtay oo madaxda maamulada ay ka sameeyeen taas waxa waaye lisma weydiinayo oo ah waxaas waa loo wada jeedo qof kasto laakiin wax walba waxaan ka soo qaadanaynaa anaga guusha meesha ugu dambayso oo ah systemkii hore inuu sii socdo taas anaga noogu weyn laakiin musuqmaasuqaas tirada badan leh waa wax jira oo xilwaano badan ku soo baxeen oo ah maamulada xagoodii taasna waxa loo sameeyay guddiga xalinta khilaafaadkana ilaa iyo 12 xubnood ay soo xukumeen taasna ku tagrifal awoodeed oo madaxda stateska jiray iyo madaxdii qaranka xiliga joogtay ayaa waxay ka soo saareen 5 qofood oo kaliya shantaas doorashada dib loogu celiyay laakiin guddigii loogu talagalay oo dastuuriga ahaa ee xalinta khilaafaadka 12 xubnood ay ka soo saareen taasna marxaati waxa u tahay systemkii ee guddiga xalinta khilaafaadka ay u soo gudbiyeen laakiin soo wanaagsanin wax badan laga qabto arinta hadda aad ka dhawaajinaysa inay jirto adduunyada meel kasta ay ka dhacdaa musuqmaasuq markii doorasho xilliga doorashada la joogo taas ma dhaheena kaliya Soomaali kaliya gaar u tahay taa waxaan leeyahay waxaan noogu weyn hadafka laga leeyahay ka weyn waayo qaladaad wadaca anaga muddo dheer 46 sano ka hor ayaa noogu dambeysay doorasho marka waxyaabo badan oo qaladaad iyo musuqmaasuq inay dhici karaan taas practically waa wax la wada og yahay experience-gaana intaasna gaarsiisay faragelin tiro badan oo jirtay xiligaasi oo madaxda maamulada ay aad u faragelinayeen laakiin waxa soo tiro ah waxa ka weyn hadafka laga lahaa oo ah isbedelka socday iyo wax qabadkii markaas xukuumadii oo Umar Cabdirashiid madaxweynena uu lead gareynayay ama uu initiative-ka markaa lahaa Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa madaxweynihii waqtigiisa u dhamaaday hadda xilka ka degay hadda dadka waxay ka hordhoorayaan in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu soo magacaabo gole wasiir haddana dadka qaar waxay sheegayaan in culays ay ku noqon karto ra'iisul wasaaraha Soomaaliya golaha wasiirada uu soo magacaabayo arintaas maxaa ka leedahay aniga ma qabo sababtoo ah dalka ewer lagama bilaabayo waxaa jira dad badan oo aqoon-yahano ah Soomaaliyeed oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo xaq u leh inay soo galaan golaha xukuumadda iyo dad badan oo wax wanaagsan soo qabtay practically-dana la hayo ama ha kamid ahaadaan xukuumadihii hore ee jiray ama ha ahaadaan maxaa la dhahaa ama golihii xukuumadihii hore ha jiraan ama qaybaha kala duwan ee bulshada qaybihiisa kala duwan ha ku jiraan waxaa jira dad wax wanaagsan soo qabteen kuna soo guuleysteen runtii dadka noocaasi ah in la tixgeliyo
xukuumadana ay kamid noqdaan is very important way xukuumadda waa kooban tahay haddii u badato numberka 50 ilaa 60 qofood xukuumadda noqon karta markii la isku daro wasiir ku xigeen ama wasiiru dawla wixii la isku daro hadduu u badato 40 50 60 noqon karta Soomaalina waa 4 milyan in ka badan marka lagama weynayo dad oo nadiif ah oo wax qabadkooda wanaagsan aqoontooda dhisan tahay karti leh dadnimo leh oo honesty ah la aamini karo waan gartay ra'iisul wasaaraha sidoo kale waxa uu sheegay Soomaaliya in garsoorka uu ka madax banaanaan doono dawladda inteeda kale arintaas maxaa kale taas ra'iisul wasaaraha hadalkiisa ma ahan waa awoodaha dastuuriga ah ee dalka oo ah saddexda awoodood waa kala madax banaan tahay sideedaba taasna waa arin dastuuri ah arin macnaha oo ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne ama gudoomiye baarlamaan dhihi kara ma waahabo dastuurka ayay ku caday waxay u baahan tahay fulin ra'iisul wasaaraha waxa laga rabaa iyo madaxweynaha laga rabaa iyo gudoomiyaha baarlamaanka implementation-ka laga rabaa fulintiya laga rabaa sababtoo ah inay isdhexgalaan waa qalad waayo hay'adda sharci dejinta waa baarlamaankii gol uu leeyahay parliamentary ah golaha baarlamaanka oo ka kooban golaha shacbiga iyo aqalka sare wixii shuruuc ah ee dalkaas laga sameeyay ay xaqooday ku ogyihiin xukuumadda waa fulintii waa adimihii ay ku shaqeynaysay xukuumadda oo institutionada ay u shaqeynaysay shacbiga Soomaaliyeed oo shaqeynaysay taana wax waa fulintii waajibaadkooda saaran waayo sharciga halkan lagu sameeyay sharciga fulintiisa waxa iska leh xukuumadda iska leh okay siyaasadii guudna asaa iska leh mas'uulka ah xagga dhaqaalaha asaa mas'uulka ah xagga dib u heshiisiinta iyo nabadgelyada shacbiga Soomaaliyeed xukuumadda mas'uulka ah arrimaha garsoorka guddiga adeega garsoorka jiri doona oo dastuurka tilmaamay waxa jiri doonto maxkamadda dastuuriga maxkamadda sare iyo maxkamadihii oo ah tan rafcaanka iyo tan gobolada intaba marka waayo package dhan ayaa chapter dhan ayaa arintaas kaga hadlaya dastuurkeena anaga aan haysano hadda lagu shaqeeyo ee ku meel gaarka ah chapterkaas saa tilmaamaya awoodihiisa iyo kala madax banaanaanta awoodaha dalka ee ah fulinta sharci sameynta iyo garsoorka saddex shay isku jiraan mid asigaba u dhashay oo aqoontii lahayn kaabaha musuqmaasuqa uu yahay mid la handadayo oo awood kale la isticmaalayo faragelin hay'adaha dawladda oo dhinaceeda ka imaanaya saddexdaas arin ayaa problemka ugu weyn ee garsoorka ka imaan kara musuqmaasuqeeda haddii saddexdaas laga madax baneeyo wax badan aad toosaya hal ku dhiga ra'iisul wasaarahan cusub waa la dagaalanka musuqmaasuqa la dagaalanka musuqmaasuq waxa la dagaali kartaa adiga marka hore institutionkii inaad dhistid sharcigii samaysid dad nadiifna aad u dhibtid ko cidda aad la dagaalamaysidina xuquuqdii lahaayeen marka hore inay helaan qofkaas aad la dagaalamaysid markuu xuquuqdiisa dhameystiran uu helo musuqmaasuq oo iman kara adduunyada anti corruption ka sidiisaba Soomaaliya waxay u taqaanaa dhaqaalaha la lunsaday laakiin corruption-ka meelo badan oo galaa corruption-ka meelo badan ayuu galaa systemka wadamadan la isku yiraahdo commonwealth-ka waxay isticmaalaan ombudsman wax la yiraahdo ama gardoon anaga constitution-keena waa ku yaala laakiin implementation-kiisa wili lama fulinin oo hadda koor baarlamaanka la keenay waa fahmi waayay waa la diiday haddii laakiin markaas guddi loo xilsaari lahaa cilmi baaris soo sameyn lahaayeen wuxuu yahay ombudsman waa fahmi lahaayeen shaqooyinka isdhexgalay oo ah tii oo gariiqaanka xeer ilaalinta iyo tii maxaa la dhahaa auditka ayaa marka sidaa ayaa loo hakiyey arinta marka ombudsmanka waxa waaye laba branch ka soo baxaysa oo ah midna injustice-ka iyo midna corruption-ka marka labadaas qaybood waxay isku tagayaan corruption-ka dhaqaale iyo wixii kala hadlaysa injustice-ka waxa kamid ah deeqaha waxbarashada la helo oo si dadban loo maareeyo waxa kamid ah macalinka oo waxa saxayo ardayga imtixaankiisa saxayo oo ku sameeyo xaqiraad waxa kamid ah shaqo aad soo doonatay soo apply gareysay ila institution keena aniga dastuurka waxa noogu yaalo
waxyaabo badan oo u baahan in implementationkiisa la gudagalo oo ah qaabka shaqo qorista oo kale markii aniga aan shaqada qoro in adeerada iyo qabiilkayga qoro wasiirka dhinaca kale ka soo jeedina qabiilkiisa uu qoro yaa u maqan shacbiga Soomaaliyeed cid u maqan malaha marka waxyaabaha inta badan imaan karo in laga hortago maxaa la dhahaa corruptionka waxa isku xiran package dhan isku xiran waay oo ah markii hore in la design gareeyo waxaan si loo saxo tusaale haddaan usoo qaato shaqaalaha dawladda oo ku dhawaadka 7,000 ah oo mishaarka dawladda ka qaata haba soo daaha mishaarka laakiin halka ciladooda ay leeyihiin maxay tahay shaqaalaha dawladda awriska 8 saac loogu talagalay ma shaqeeyaan that's question is what u baahan yaasa shaqeeya waxa dhici karta wasaaradda inay 100 shaqaale ku qoran tahay 150 ama 60 shaqaale ku qoran tahay 60 kaas shaqaale ama 100 kaas shaqaale awriska marka tagtid subaxdii shaqada aad 2 saac tagtid ilaa 8 saac lagu talagalay inaad shaqeysid adiga maalintii markaad 9 saac tagtid wasaaradda ama 7 saac tagtid qof aad ku arkaysid malaha wala kala maqan shaqaalihi in la xisaabtamo maxay kamid tahay waa qayb kamid ah corruption-kii waayo ninkan xuquuq qaadanayo mishaarkiisa lagama goynayo mishaarka soo daaha hadduu doono 3 bilood 4 bilood 5 bilood ka maqnaato laakiin xuquuqda uu leeyahay waa heloya ya markuu helo awriska uu shaqeeyay markii la qaybiyo lacagta uu qaatay awriska waa kala badan yihiin lacagta badan uu qaadanaya xaq daro waa marka xisaabtanka wuxuu u baahan yahay meel kasta inay gasho dawladda hadda aan runtii kamid ka ahay aniga iyo mid cusub ee dhismi doontaba haday sameeyso shaqo abuur dalkan aniga hadda ka soo qaado wasaaradda arrimaha dibadda qaybtan qaabilsanahay waa investment promotion dhiirigelinta maalgashiga dalkan shuruucdiisa maalgashiga hadii loo dhameystiro dalkan nabadgelyadiisana la sugo dalkan dhaqaale ku filan asaal leh deeq uma baahna oo banaanka ka timaada wasiir waxaad xil saaran tahay wasiir dawladda arrimaha dibadda ayaa tahay waxaa jirta dhalinyaro badan oo wadamada ku xiran caalamka maxay wasaaraddiina ugu shaqeyn weysay si dadkaasi loogu soo deyn lahaa xabsiyada ku jira si dalkooda dib ay ugu soo laabtaan arrintaasna waxna waa wax oo diplomatic way-ga oo safaaraddeena ka shaqeeya hadda tan arrinta hindiya ka dhacday oo kale safaaraddeena ka shaqeyso arrimahan South Africa iyo Mozambique iyo Angola ka dhacaysana safaaraddeena South Africa ka shaqeyso arrimaha ka taagan hadda dadka ku xiran Cumaanna safaaradda iyo xeer ilaalinta guud ee qarankan waa ka wada shaqeeyaan waxaan ku sheegaa mishiino tiro badan jiro oo xeer ilaalinta oo ku tagay xarumahaas iyo meelahaas oo dhan marka dawladda kama fadhido arrintaas waa ku shaqeeyaan markii hore qaabka loo qabtay horta sharci darre ahayd oo si qaarna baarista lagu qabtay qaarna tahriib kala lagu qabtay nin walbo kiisaskoodii waa kala duwan yahay qaarkood criminal ay ku xukuman yihiin oo dambi ay galeen ay ku jiraan oo qaarkood marka feelkaasi xoogiisa waxa gacanta ku hayo xeer ilaalinta guud ma jira marka qorshe ku aadan si dadkaasi xabsiyada loogu ilaa hadda waxa daba socdo waxaan u maleynaa dhowr jeer inuu idaacadaha ka hadlay arrintaas xeer ilaalinta guud xeer ilaaliyaha taas Talyaaniga ku xiran maxaad kala socoteen Soomaalida Talyaaniga aniga ilaa hadda report aan dhameystiran hal nin kaliya ogaa waxa shii la soo xiriiray Soomaaliya waxa jirta xabsiyada ku jiraan oo ku sheegayeen dhibaatooyin ay ku haystaan xabsiga Talyaaniga niyo aniga ma haytaas Talyaaniga dhowr jeer aan tagay sanadkana ugu yaraan hadda 3 goor aan tagay sanadkii horena 6 goor aan tagay ma maqlin xog noocaas ah hay'adaha kala duwan iyo madaxda badan waa la kulmay madaxdeena dhowr goor ay tageen ilaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha meesha wada tagay marka reportkaas ma hayo aniga wasaaradda arrimaha dibadda wasiir dawladda ayaa ka tahay dawladda Kenya dhowr jeer waxay ku ceelisay in dib u soo celinayso qaxootiga Soomaalida maxaa laga qabtay niyo arrintaas waxa aad ugu wada shaqeynayay waa la socotaa hay'adda qaxootiga qaranka oo noo samaysan ayaa aad horta arrintaas ugu shaqeynaysay kiiskaas la socotay hadda in badan qaxootiga si tartiib ayay dalka dib ugu soo noqonayeen oo voluntary ah heshiiskan waxa kamid ah oo saddex geesoodka ahaa labada dawladood iyo hay'adda UN-ka ah in qaxootiga si voluntary ah ay dib ugu soo noqdaan hadda ma jiro barashar tiro badan sidoo kale shirkaas saddex geesoodka aad dhawaajisay
waxaad ku sheegteen in qofkaasi qasban lagu soo celin karin ilaa qofka uu ka ogolaan dib waddankooda loogu soo celin badanaa dadka hadda imaanaya si voluntary iga kusoo baxooyo waa dareemi kartaa riboodkii ugu dambeeyey ee hadda ilaa iyo dhowr iyo 10,000 ya inay dib ugu soo noqdeen marka numberka maalin walba waxbaa iska dhimaa fiiri dalka markuu nabadgelyadiisa si hagaagaba ya waxaa imaanayso maxaa la soo noqosho badan labada meelood ugu badan ee dadka runtii oo hadda Kakuma iyo ya joogaan iyo waxa waaye waxay ka tageen goboladan koonfureed ee Soomaaliya majority-goodii xataa Jubaland Axmed Madoobe qorshe cad ay u sameeyeen ya oo arintaas inkastoo South West oo capacity badan aysan jirin dadka meesha joogo leadership-koodana aad u liito laakiin qorshe cad jiro oo barnaamijyadas loogu talagalay marka dejin aad u samaysan miyaa jira dadkii dib ugu soo laabtay Soomaaliya that's the meelaha ay ka yimaadeen wasaaradda qorsheynta wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo waxa aad ugu wada shaqeeyo maxaa la dhahaa hay'adan qaxootiga waxaana feelkaas oo dhameystiran gacanta ku hayo hay'adda qaxootiga gabadhii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay xalka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa oo waddanka Soomaaliya ku aaday halkan isbedelkan hadda yimid ilaahay ha ka dhigay isbedel qeyr leh isla mar ahaantaana hadafka ugu weyn oo ah xasilinta nabadgelyada oo deganaashii in dib loo soo celiyo labo in la sameeyo shaqo abuur tiro badan oo loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed si shaqo abuurkaasna ay ugu qayb qaadato nabadgelyada naftirkeeda saddex in lala dagaalamo corruptionka ama musuqmaasuqa isla mar ahaantaana la helo garsoor caadil ah intaas dalkan duu loo helo dhaqaale ahaan asaas dhisi kara gudahaan daawadayaal inta ayaan kusoo xumirayaa barnaamijka hadalhaynta toddobaadkan waxaan ku wareysanaynay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Khalid Cumar Cali intaan barnaamijkan lamid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sinay nabadgelyo barnaamijka waxaa idin soo saaray aniga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa